هذا ما سنتي دمانتي باور باين 77 iyo caawa oo khamiisa bisha abriil ay tahay 9 sanadka 2020 shacab cabado ahayd warbaahinta 77 waxa aan mar walba aan dadka warbaahinta aan la socodsiinaa bal xaaladii ugu dambeeyay iyo kororka coronavirus-ka dalka Mareykanka maadaama hadda uu faraqul ku hayo kuna sii faafay dhimashadiisuna ay maalinba maalinta ka dambaysa ay sii badanayso gaar ahaan waxaan culays ka saaraa halka ay Soomaalida ama gobolada ay ku badan yihiin si aan warar dheeraad ah aan ula wadaagno dhageystayaasha warbaahinta 77 ee ku kala sugan dalka Mareykanka iyo waliba daafaha kale ee Yurub iyo Asia aad u mahadsantihiin dhamaantii baa waxa warbaahinta Martino ku ah Maxamed Muuse Xasan oo aan ku cusbaan BBC oo isagu marar badan la wadaaga si mutadawacnimo aan warbaahinta ugu soo gudbiya xogihii ugu dambeeyay hadii aan lahayd kiisaska iyo xogaha iyo shuruucda state-ka iyo waliba arrimaha federaalka Mareykanka maadaama dad badan ay ka sugayeen wuxuu dhaqaalaha aad u mahadsantahay Maxamed ku soo dhawow bal waxaad nala wadaagtaa wixii ugu dambeeyay ee soo kornay ogaanka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان كلها والسلام يا سيدك الله محمد علينا يا ولي سوريال وبرنامج كامرتو وعاو هذا أصل لابتو سؤال هذه مانتي دالك مريكنكا وحا وعذرك كدعي أفر بقول لحد الاستيد كون هي اللحب بقول الاستيد طبعا يوم مريا دمشقنا واللحية طوام كون لحب بقول سكاشين في الضبط وتريد جود دالك مريكنكا marka waxa moodaa waa tiro almost ku dhow 500,000 runtii waxa moodaa in cudurka maalinta dambaysa ku sii faafaya adduunka walina aan loo helin wax xal ah kaliya marka laga reebo dadka in la wacyigeliyo oo business iyo in ay mataqaana ku taxadaraan sida ay isaga lahaayeen marka haddaan u salaabto gobolkan Soomaalidu aad ugu badan yihiin Minnesota dhimashadu maanta waxa ahayd maalintii ugu badnayd waxaa dhintay 11 qof runtii intii cudurkan uu bilowday waxaan oran karnaa waa tiradii ugu badnayd 1242 ayuu marayaa dadka hadda aan isbitaalka u baahnayn oo laga saaray hadda waa 625 oo iyagu lagu guuleystay in cudurkii ay ka dawoobeen marka runtii waxaan moodaa in wali la tacaalayo cudurka dadkuna ay aad mataqaana loo wacyigelinayo dhagood waxa kale oo jirta in la kordhiyay xilligii guryaha dadku ay joogayeen oo horey 10 bisha ugu ekaa gobolka Minnesota gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz waxa uu ku daray ilaa iyo bisha sanaad saxeeda ama May 4 marka runtii intaas oo warbixinta guud marka waxaan rabaa inaan runtii aan ka hadlo maxamuud intaan qodobada kale u gudbin maadaama sheegtay maalintii ugu dhimashada badnayd ay tahay gobolka Minnesota oo 11 qof ku dhimatay dhimasho horena ay jirtay gobolkaasina maadaama ay dadka Soomaalidu ugu badan yihiin ilaa hadda ma jiraan dad Soomaali ah oo u dhintay cudurka coronavirus horta inta badan marka laga hadlayo dhimashada Mareykanka gobolkan wax Soomaali hadda ma jiraan Soomaalidu dadka qaba tan kala gobolkan sanaduna hadda raiiska ama qofka qowmiyadu ka soo jeedo laba sheegaba inkastoo hadda New York oo kale maanta gudoomiyaha gobolka uu ka hadlayay in aad loo baaro dadka Latinka iyo Afrika Amerikaanka oo la aaminsan yahay inay yihiin dadka ugu badan ee cudurka uu ku dhacayo oo gobolka New York laakiin inta badan gobolada lama sheego laakiin Soomaalidu waxaan ogahay waa dad iska warqabo oo qoys oo isog ma jiraan dad uu ku dhacay laakiin inta badan way ka raysteen marka ma jiro wax dhimasho oo Soomaaliya oo gobolka Minnesota aad u maasan tahay marka bal wixii kale ee ku saabsanaa shuruucda kale iyo dhaqaalihii iyo waxyaabo badan bay dadka Soomaaliyeed ee ku noolaa maadaama dad ganacsadayaal ay ahaayeen dad iskoodu xamaashay ay ahaayeen haddana weli uu socdo bandoogi xagee wax maraya marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabihii benefitka ama xagga xuquuqda dadku ay heli lahaayeen haddii aan lahayn shaqo iyo haddii ganacsi marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku hormaro runtii maantay waxaa bilaabatay lacagtii unemployment-iga oo waliba federaalka waxa rabaa taas inaan sharaxo qof walba oo unemployment buuxiyay waxa maanta uu helay jeeg $600 oo federaalka ka imaanayay waxa kale oo su'aal oo nasiib aad u badan saddex gobol ee ugu horeysa ee hadda loo fasaxay lacagta federaalka ayay Minnesota ka mid tahay marka qof walba oo unemployment qaatay lacag $600 oo jeega ay maanta uu helay marka dadku waxaan ku dardargelinayaa
in unemployment-iga dadku ay apply gareeyaan si ay u helaan lacagahooda sababtoo ah hadda waxaa moodaa in maalmaha dambeysa ay dadku badanayaan hadda 46,000 oo qof ayaa maanta usoo dhacay jeega oo reer Minnesota ah halka ay ka buuxiyeen 274,894 marka runtii waxaa moodaa in ay kordhayso marka taas waa mid waxaan kale oo rabaa inaan iyadana si qoto dheer uga hadlo waxaan ognahay dad badan oo iyagu iskood u shaqaysta ama ha wadaan Uber ama ha wadaan shaqooyin kale oo gaar ah ama tujubaana ha noqdaan oo self employment-iga ah dadka gaarka u shaqaysta iskood dad badan ayaa waxaan fili doonaa caawa qolkan ku jira oo intii ay xariyeen loo diiday unemployment-iga state-ka marka waxaan rabaa taa inaan sharaxaad ka bixiyo dadka sida gaarka u shaqaysta oo iyagu mataqaanaa ii shay apply gareeyay oo loo diiday unemployment-iga waxaan u sheegayaa dadkaas lacag waxa loogu talagalay federaalka ah lacagtaasi already way soo gaartay gobolka Minnesota laakiin shuruucdii lagu qaadan lahaa ayaan wali imaan marka waxaan dadka u sheegayaa qof walba oo lacagta loo diiday lacagtaas wuu helayaa ardambana uma baahna inuu buuxiyo form kale automatically waxay usoo dhacaysaa markii shuruucdii lagu qaybin lahaa lacagta federaalka lacagta way soo direen dadka iskoodka u shaqaysta ama overka ama tujubaanada ayaa loogu talagalay oo istirka aan xuquuq ku lahay in lacagta qaataan waxayna qaadanayaan muddo 4 bilood ah ayay usoo dhacaysaa lacagtaas marka dadkaasi waxaan u sheegayaa inay sugaan tan kale waxay tahay dadka oo aan ka hadlayo oo qolka ku jira waxaan fili doonaa in ay si fiican u fahmaan state-ka kuma laha lacagtaas waxay ku leeyihiin federaalka lacagtii way taallaa laakiin waxaa la sugayaa waxyaabihii lagu bixin lahaa yaa mataqaanaa ii sheeg meeqaa la siinayaa shuruudihii iyo foomkoodii baa la diyaarinayaa markii ay timaadana dabcan qolkan kusoo laaban doonaa waa inii soo sheegi doonaa marka we hope in lacagtaas week or 2 weeks whatever ay ku timaadaba in aan soo sheego marka don't worry lacagtii ladima diidin waa inii taallaa kaliya waxaa la sugayaa in la fasaxo oo shuruudii la helo taas halka ayaa uga baxaya waxaan usoo laabanayaa oo aan rabaa inaan ka hadlo lacagta iyaduna federaalka oo ganacsiga lacag waxaa jirta ilaa 10,000 oo loogu talagalay dadka iskood u shaqaysta oo iyagu mataqaanaa ganacsiga leh waxaa kamid ah oo xaq u leh ani ganacsi ay Soomaaliya leedahay dukaamada dharka kamid ah timajarayaasha kamid ah dadka waxaa kamid ah mataqaanaa lumusiinka wada qof walba ayaa apply gareeya lacagtaas waa 10,000 ilaa 2,000 bay ka bilaabtaa ilaa 10,000 waxaa laga yaabaa inuu 3 lagu siiyo in 4 lagu siiyo in 5 lagu siiyo qofba in baa la siinaya waxay ku xiran tahay businesskiisa lacagtaas marka ma deyn ba maya deyn maaha waa garanti waaye loogu talagalay dadka in lagu taageero federaalka ka imaanaysaa waxa kale oo jira waxa la yiraahdo paycheck protection ama afka Soomaaliga u dhaho lacag loogu talagalay in shaqaalaha la siiyo oo qofku laga rabo dadka u shaqeeya inuu ku bixiyo joogoodii taasna iyadana way taallaa oo waa diyaar oo dadku ay apply gareyn karaan intaas markaan uga baxo waxaan rabaa inaan ka hadlo lacagtii oo dadku ay qaadanayeen oo 200 ahaa iyadu lacagtaas 2 bilood baa loo galay saan sheegay way imaanaysaa dadka inta badan uma imaan laakiin way imaanaysaa bishan way imaanaysaa dhexdeeda ama dhamaadkeeda waa si 200 ahayd ilaa iyo 500 waxa kale oo jirtay in iskuulada aan ka hadlay iskuulada lacagihii la ogolaaday oo St. Paul iyo Minneapolis ahaa oo waliba waa iskuulada dugsiga hoose dhexe oo ilmaha dhigta St. Paul iyo Minneapolis labadaba St. Paul waa tan hore u sheegay Charter Schoolka iyo public waa la ogolaaday laakiin Minneapolis xogaa waxa moodaa Michael waxaan siinayaa 39 iskuul oo middle school ah iyada dood baa ka socota waxayna u badan tahay in lagu soo gabagabayn doono in lacagtaas la wada qaadan doono lacagta marka goormay diyaar tahay lacagtaas waxaan filaynaa applicationadoodu inay furmi doonaan bisha 15keeda sooyaalo lacag walba marka la saxiixo waxaa loo diyaariyaa foomkii applicationkii taasoo marka waxay qaadataa xoogaa lacagtaas applicationkeeda 15 bisha marka waa 3 lacagood Minneapolis lacagta iskuulka 15 bisha weeye lacagta deynta oo iyaduna 2,000 oo aan rabay inaan ka hadlo ilaa 10 ah iyaduna waa deyn lacagtaas deynta ah oo Minneapolis waxaa laga yaabaa 50% dadka in laga cafiyo hadhowto ama laga wada cafiyaba lacagtaas dadka ganacsada ayaa xaq u leh waxaa laga yaabaa inay noqoto
zero interest ama wax riba ayna lahayn ama laga dhigo boqolkiiba labo marka iyadana waxay la furi doonaa 15 bisha saddexda application ba waa isdaba socdaan tan oo iskuulka tan deynta labadaba intaas ay applicationadu leeyahay dabcan markii la furmo dib ayaan soo laaban doonaa waxa kale oo aan rabaa inaan ka hadlo lacagta saddexaad oo Minneapolis la ogolaaday waa lacagta dadka hadday kirada bixin waayaan loogu talagalay in looga bixiyo oo lacagtaas iyadana waxa xaq u leh qofkii guri ku jira kiraa oo kiradii bixin waaya kadib qofka ownerka oo guriga iskala mulkiilaha baa loo qorayaa jeega si looga bixiyo kirada marka iyadana waxay furmaysaa 15 bisha Abriil saddexaas lacagood waa magaalada Minneapolis aan sharaxay waxaa jirta lacag kale oo iyaduna symbol laga bixinayo oo iyaduna garanti ah oo aan ahayn deyn 2,000 ilaa 9,000 waaye marka iyada waxa abalan gareynaya inta badan dadka iska leh ganacsiga hoose gaar ahaan aad waxa ugu badan dadka coffee shopka ama maqaayadaha specifically labadaas ayaa xaq u leh iyada application-keedii waxa uu soo baxay 13 bisha iyadana waa St Paul taas markaan uga baxo guud ahaan waxaa muuqdaa in la dadar gelinayo in runtii inta badan la siiyo dadka xuquuqda ay leeyihiin oo dhan su'aal kale ayaa jirta aqalka Congress-ka qaar ayaa waxay qabaan hadda lacagtan 2,200 ah dadka in dhowr bilood la siiyo meesha hadda ay labada jeer ka tahay laakiin waa proposal baa soo gudbiyay proposalka laakiin wali lagama wada hadlin laakiin qaar baa qaba marka guud ahaan dabcan intii badneed waxaan jeclahay in aan ka hadlay gaar ahaan ugu dambeyntii dadka Uber-ka oo hadda aan aad u sharaxay haddii aad aragtaan in waraaqda buuxisaan la idin diido macnaheedu waxa weeye lacagtii federaalka ayaa la siinaya iska suuga marka wixii su'aalaha qaadanaya okay aad baad mahadsan tahay bal waxaan weydiin doonaa dadka cidda su'aal qabta aad baad u sharaxday meelo badan baa taabo okay bal cidda su'aal qabta bal soo taabtay star 1 bari had weydiinaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سويا وقت سلامة أبي قلها ولكن waxaan weydiinaya dadka xaasleyda oo yiri xagga guriga kirada iska bixin waayo familada ma naga dalbanayno lacagtaasi oo meelaha laga dalbado ayaa jira ifahmo buuxinayno se directly haway qofka guriga iska leh ayaa dalbanaya markaan u sheegnay iska bixin weyno oo kamariye waxa marka taahana laga jawaabo okay su'aal fiican waaye horta lacagta aan ka hadlayo waa specifically dadka degan magaalada Minneapolis ayaa horta marka hore xaq u leh inuu qof degan yahay magaalada tan labaad lacagta marka application-keeda uu soo baxo waxaa loo subinayaa contact phone number-ka iyo cidda lagala xiriirayo taasna waan soo siin doonaa marka number baa la wici doonaa numberkaas ayaa wacaysa waxaan u sheegaysaa addresska meesha aad degan tahay kirada bisha lagu leeyahay iyo inta qof guriga kula degan kadibna waa la process gareynaya marka numberkaas dabcan waxaan soo bixin doonaa marka application-ka la print gareeyo lacag waana ka bax waxaan siinayaa janagala ma su'aal baa weydiinaysaa kor baa saaran tahay waxaan dhihi lahaa aad baad u mahadsan tihiin waana na qanciyey ninkaasi wax badan buu noo macneeyey waxyaaba uu yidhina waxba ka dhiman waktiga iyo faahfaahinta waa jiraan si fiican buu noo qanciyey waxa bad buuna ka hadlo aad fara badan oo meel hadda gaar ahaan wax laga su'aal aanu ma garanayo assalaamu calaykum qancinta marka okay aad baa maasta yaa kala su'aal qaba يا كلا سؤال قبا وعبد السلام هيا كسو محمود وقت سلامي وعبد السلام رياض وقت سلامي waxaan ku weydiinayaa su'aal la xiriirta dadka isugu jira dad guryo degan iyo dad business ah waxa maqaal ah nolosha waa taqaanaa ninka ownerka ah dad badan baa eviction loo soo dejiyey oo guryo iyo ha noqoto iyo business ba arrintaas
waxba ma kala socotaa maxaase dadku ka yeeli karaa ma wici karaa absaan su'aal fiican waaye aad iyo aad ku mahad celinaya horta waxaan ka hadlayaa xagga sharciga saa ogtihiin gudoomiyaha gobolka wareegtooyinkii ugu dambeeyay bishii hadda dhamaadkeeda waxaa ka mid ahaa qof lagama saari kara guri uu degan yahay ama ganacsi ha ahaado ama kira ha ahaado marka dadka dhageysanaya haddii qofka guriga iska leh lacagta aad siin weydo waa lacag horta lagu leeyahay laakiin kuma handadi karo kama saari karo waraaq notiisa kuma soo saari karo waraaq maxkamadeed kuma soo diri karo shuruucdana waa ogtahay cabdisalaan wadankan marka qofka guriga laga saarayo sida normalka marka waxaan ka hor hadda ay dhicin normalka ah qofka waxaa loo siiyaa digniino waxaa la lacagtaas bixi haddaa bixin weyda waa laga saaraya guriga maalintaasa kugu dambaysa kadibna qofka onka waxa waadaa maxkamadda countiga uu degan yahay kadibna countiga ayaa amar qofka guriga in xoog looga saaro oo shariifka ayaa loo soo diraa oo waa laga rabaa marka hadda taas ma jirto amarka dawladda oo gudoomiyaha gobolka uu soo saaray ayaa jira company walba iyo cid walba oo isku dayda in ay handado ama ay ku tumato sharciga xuquuqda qofka uu leeyahay waxaa lagu qaadayaa sharciga state of Minnesota waana la ganaaxayaa marka horta ma jirto qof oo ganaax ah oo laga saari karo guriga bil ha joogo laba ha joogo saddex ha joogo ma laga saari karo xaaladan inta lagu jiro kumana dhaco sababtoo ah shuruucda ayuu ku tuntay waxaa ka badan dhibka ku imaanaya oo tigidka ah taas waa mid waxaan usoo laabanayaa su-aasha ah qofka guriga horta kirada ku jira oo lacagahan oo kale sitigaa buu xaq u leeyahay oo isaga bixinaya waa la siinayaa waxaa kusoo haray ganacsiga waxaa ku jira labadii lacagood aan ka hadlay oo SBA-ga oo ah muxuu ahaa federaalka oo 10,000 ah in kharashaadkaas oo kale isaga bixin loogu talagalay waxaa kamid ah tan hadda aan ka hadlay Minneapolis oo kale ama St. Paul laga bixinayo oo loogu talagalay in la siiyo wax kale maaha lacagahaas oo dhan inta badan waxaa lagu bixinayaa in dadku ay ku bixiyaan kharashaadkii iyo kiradii meesha sababtoo ah meeshii baa xiran marka intaas baa baxay su'aashaada waa mastahay ciddii marka ugu dambeyntii aragta in waraaq handadaada loo qoro ama la guriga ka baxa numberka waxay wacayaan Minnesota oo attorney generalka oo Keith Ellison office-kiisa ciddii numberka aan haysana dabcan sooyaal baan ku reebayaa numberada informationka state ko dhan ilaa 4 number asaga laga soo xardaya okay aad waa maasay ciddii guriga laga saarayo warqad loo soo diro waxay soo ana u jawaabi doonaa sooyaalo ana la hadli doona insha Allah waa maasantay waa kuma sooyaalo hal su'aal wiilka ma weydiiyaa baraalaga waa afkuriye ayaa afkuriye wabsi su-aashu walaalo waxa weeyaan horta aad baan idin salaamayaa aad baan maasantiin qala Allah siiyo xildhibaankan iyo golaha sababtaan baan salaamayaa talaan kadib su-aashu waxay tahay haddii sharciyada sida kaleeto laysanka ama ID-ga haddii uu dhaco meesha maadaama waa meelihii oo dhan ay xiran yihiin amin baa la furahaya base oo haddii ay dhacaan boolisku muxuu qabanaya mise kuma fiicna okay su'aal fiican waaye arrintaas miiska ayay saaran tahay runtii waxaa jira saashigiisa dad badan oo ay ka dhaceen shatiyadii waxaa kamid ah ay ka dhaceen tagaasida qaar waxaa kamid ah laysinkii uu ka dhacay qaar waxaa jira uu ka dhacay mataqaana ID-hii waxaasoo dhan waa la socdaa marka waxaan rajaynaynaa weegaan soo socda in go'aam ay ka soo baxaan xaaladna hadda lagu jirana runtii waa xaalad oo mataqaana loo jeedo marka dabcan go'aan baa ka imaanaya mana qaba aniga sida hadda inkastoo anigu aan hubin hadda dabcan go'aan baa ka soo baxay oo ah laba system in qofkii looga cusboonaysiiyo online iyo in qofkii uu iska haysto inta laga furayo kolleyba go'aan baa ka soo baxaya go'aankii hadda aniga ma hayo dawladdu weli ma hayso go'aan lagama gaarin laakiin waxay kamid tahay waxyaabaha laga wada hadli doono wixii ka soo baxa markii aan soo ogaado ayaa in la wadaagaya laakiin waxay kamid yihiin waxyaabaha taagan hadda oo u baahan xalka in laga hadlo marka dabcan waana soo ogaan doonaa insha Allah idiyada qaar baan sawir lahayn qaarka sawirka aan lahayn qaarka sawirka ma laga bixin karaa qolka online maya horta sida hadda muuqata shaqooyinkii qaar ayaa lagu shaqeynayaa xafiisyada marka ID-ha sheegtayna si laba system waaye waraaqdii
dad waxaa haysta iyo kiyoodii hore in laga jaray marka dabcan waxaa imaan doona solution in dadka extension lagu soo bindino let's say haddii hadda online laga buuxiyo waxaa hadda dhacaysa idyahagu hadda wuxuu dhacayaa April 3 ama May 3 in qofkii intii uu loo cusboonaysiiyo oo loo soo diro baalkii iyo in extension ay suubiyaan oo la yiraahdo dadkii uu ka dhacay extension baa suubina oo lama hadli karo booliskii ahayda ay khusay let's say April 3 buu ka dhacaya ma tagin ma buuxin waxaa la yiri ilaa July qofka lama hadli karo marka dad decision ma ka soo baxaya qofka public safety marka baa okay adu ma say starta waxa ninka la afguri xaguga ma su'aal ba qabtaa qorba saarta ها ولا ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ay ku soo aniga su'aal ba salaam ya سكان وقصين دون عليكم السلام أحمد الله خير بدها فيه جزاك الله خير ما له حاسة عاشي ولا الحويان قف يرأو يعني اللي يراه الشقيستي أو تقص نحري حدنا والد كلام قريستي ميو أو تقص صو نقضي حدنا والد كلام قريستي ميو ليه العكس. أوكي سؤال في عام واحد أوكي qofka marka uu taxiga xareeyay ma asaga xareystay oo gooni ah mise ka hor inta uu xareysan baa lagu xareystay labada qof kii dambeeyaan rabaa ma markii lagu xareystaa dambeysay mise markii asaga uu xareystaa dambeysay intaas rabaa inaan waago xaguga istaan soo taabo waxaan maleynayaa inay mood ku laabatay waa ka jawaabaya marka actually haddii gabadha ma tahay sida ka faystaan okay qofka haddii qof shaqaystay asaga taxi uu ku xareystay oo uu asagu income lahayn lacag 500 buu helayaa oo asagu waxa uu maxaysan oo ma la maqlayaa lagu maqlayaa mood baan galay horta qofka 18 ma waa bay 18 ma ka weyn 18 ma weyn ha uu ku weyn okay 18 uu yahay marka waxaan rabaa inaa ii sheegto markii ugu dambeysay taxiga hadda ma asaga isku xareystay mise asaga lagu xareystay asaga waa lagu xareystay waa la kalam gareystay kadib uu isagu hadda taxiga xareystay labada sano kee dambeeyay marka ma markuu xareystaa dambeysay mise markuu lagu xareystaa dambeysay markuu isagu xareystaa dambeysay markaas lacagtiisa uu leeyahay kullu dadku uu leeyahay because of 2019 kii ama 2018 dadku asoo ahaa uu helayaa markaas kullu dadku uu helayaa laakiin asaga haddii markuu dambeeyay lagu xareystay waxa la helay oo 500 baa ku leeyahay waan ka baxay waxaan rabaa intaan su'aasha u gudbin inaan ku daro jaal keerka dad badan oo waxa jira Soomaaliya oo jaal keerka leh waliba gobolkan aan deganahay Minnesota dad badan ma biskas ku Soomaaliya marka waxa jirta lacag 30 milyan oo uu gudoomiyaha gobolka saxeexay dhamaadkii bishan lacagtaas waxaa loo qaybinayaa 3 fays waxaa loogu talagalay bil walba in la qaybiyo 10 milyan oo lagu bixiyo kharashaadkii lacagtaas marka waa garanti lagama rabo lacagtaas marka 15,000 ilaa 21,000 ayuu qofku xaq u leeyahay in la siiyo inta u dhaxaysa la siinaya marka waxaan rabaa dadka inaan kula taliyo lacagtaas qofka businesska leh waxa uu applications ku yahay 15 bisha April markii application ku dheelada inta uu ku dhamaado waxaa lacagta lagu approve gareynaya qofku uu jeegi helayaa within 5 days which is ku aadan 20 bisha April marka dadka ay maqlaya ka faa'iideystaan Soomaalida ah lacagtaas waxay ku jirtaa formka state-ka jaal oo lagu talagalay jaal grantiga ah oo lagu talagalay COVID-19 marka application easy way su'aalaha la weydiinayo waa sahal waxa la weydiinayaa daycare address-kiisa telefonkiisa muxuu ahaa magaca ilmaha uu hay age-kiisa uu yahay marka waa wax fudud dadka Soomaalida oo daycare-da haysta ka faa'iideysan lacagta 215 ka koniga waana lacag la siinayo bil walba April May June 3 milyan baa loo qaybinayaa marka dadka kalka wixii information dheeraad ah macluumaadna rabana hadda nambarkayga soo qaata waan caawinayaa waxana nambarka haysoyaal taas waa jaal keerka waaye marka waan ka baxay su'aalaha okay سكان سؤال ugu dambaysa سكان seenan aad ma santeen Maxamuud سكان saan soo taabo su'aasha ugu dambaysa BBC waxaan weydiinayaa kale business haddii aad abalgaraysay oo weli aan layska kugu soo dhicin laakiin meesha kugu karaysan tahay lacagtan waxaa ku leeyahay qofka
okay lacag waxaa jira saddex adigu laba kamid ah marka xaq uma leedin bas labadaas shuruucda waxaa waaye inuu hal sano business ka furnaa taxi inaa haysay 2018 ama 19 marka adiga waxaa xaq u leedahay saan filayo lacagtan kale oo muxuu ahaa SBA-ga taas marka informationkeeda waa ku siinaya iyo hay-adda ka buuxinayso numberkay kasoo qaado Sooyaal. Okay, thank you. aad baa umahadsantiin maxamuud muuse BBC aad buu umahadsan yahay xogaha iyo wararka dheeriga oo nala wadaagay dhammaanteenba warbaahinta 77 iyo martida caawa maxamuud muuse BBC aad buu umahadsan yahay intaan dib noo kulmi doono waa Sooyaal oo isma dhaafno.